aadan daawud waxaan nahay xildhibaanka laga soo doortay Wajeer East maanta anagoo reer Wajeer East aan iskugu imaanay inaan ka tashanno ayaha ma aragtay caafimaadka waliba khaasatan wardka Qorof Xaraar waxa iskugu imaaday meesha odayaashii oo ka soo jeeday Qorof Xaraar ward iyo mas'uuliyiintii Qorof Xaraar ward ka soo jeeday oo chief afka ward administratorska iyo mudane laga soo doortay Qorof Xaraar ward oo hadda garabkayga midigta taagan iyo anigi waxa kale oo meeshaan ugu imaanay oo nala daadihinaya programkaas on mahad balaaran ugu celinayna wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajeer ayagoo ayagana kaashanaya Save the Children Fund iyo UNICEF marka waxaan ka hadalnay sida ma aragtay programkaas loo hirgelin lahaa maxaa yeelay caruurteena badan ayaa la ogaaday in ma aragtay talaalka uu gaaray annaga reer Wajeer East danahay mas'uuliyiintii iyo dadweynihii ka soo jeeday Wajeer East waxaan ballan qaadnay inaan garab u noqono hay'adda Save the Children iyo wasaaradda caafimaadka ayadoo ma aragtay UNICEF-na ay maalgelinayso inaan gaarno koona kasta oo ma aragtay Wajeer East especially Qorof Xaraar ward inaan gaarno si aan caruurteena ma aragtay u talaalana kuwii ma aragtay daryeelka u baahanna deeq la gaarsiiyo marka maanta ballanqaadkaas aan sameynay anigoo ku hadlaya magacii Wajeer East anigoo odayaashaydii iyo mas'uuliyiintaydina ay garab taagan yihiin ayaan dhahnay waxaan noqonaynaa dad u hoggaansamo ma aragtay baahida caruurtooda iyo baahida dadkooda dad u hoggaansama inay ma aragtay ay baahidaas anagoo ilaahayna kaashanayna inaan dhammayn karno marka waxaan mar labaad mahad aad u bilaaran ugu celinayaa Save the Children Fund oo hay'adda gargaarka dhalinta iyo ma aragtay UNICEF iyo wasaaraddeena oo Ministry of Health oo countiga Wajeer marka shirkii wuxuu nooga soo gabagaboobay si fiican ballanqaadyadaasna waa sameynay hadda waxaan tilaabaqaadkii baa noo dhiman annagana diyaar aan inaan sameyno insha Allah taala waan ka marin dhalin doonaa waana arki doontiin tilaabadan qaadnay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Lisha ni mimi ni DCC katika ofisi yake ninamsaidia katika kazi zake Wajir East tunaielewa jinsi ambavyo ilivyo ni mahali imekuwa na shida kubwa ya usalama kwa muda mrefu sitaki kuhadithia historia ya Wajir East kwa sababu sisi wote tuko hapa na tunatoka pande hiyo ya Wajir East tunajua everything mpaka kwa ground ni area kubwa iko na shida mbalimbali vile tumekaa hapa tunajua kwamba as much as kuna shida mbalimbali zenye zinakumba county yote at least some areas mashirika ya usaidizi kama hizi ambazo ziko hapa the children na zingine wamekuwa wakifanya kazi wakisaidiana na bidii ambayo inafanywa na serikali wakati kuna challenges kama ni ukame kama ni maji kama ni afya kama ni maendeleo mbalimbali at least sehemu zingine zimekuwa zikifanya kazi hapa na pale lakini sehemu hiyo haswa Qorof Xaraar ward tunajua kwamba imekuwa na changamoto zaidi kama kunao wenye wanafanya hapo ni wachache sana na bidii ambayo inaongezewa kiasi na some services za serikali si zote some services katika ofisi yetu hapa ya county commissioner mara nyingi tunapokea na machifu wetu wanaweza kuwa mashahidi wananchi wa Qorof Xaraar wanakuja hadi ofisi zetu kuomba zile huduma ambazo zinafaa kuwa zinapewa huko kwa DC wa Qorof Xaraar kwa sababu ya usalama lakini sasa tumekuja kwa sababu ya kitu inaitwa reality check katika mikutano mbalimbali mheshimiwa watu wamekuwa wakijadili hili jambo la tutafikiaje Qorof Xaraar
iko porous, iko na attacks, maisha ya watu imepotea, mali ya umma imeharibiwa, uoga imejaa kwa watu, tutaifikiaje? Mashirika yameniambia wakati mwingine ya kwamba hawawezi kuenda huko kwa sababu ya kiusalama ya staff wao na kwa sababu ya policies ambazo zina guide donors. Lakini kwa mara kwa mara hiyo changamoto imeibuka katika majadiliano, na ninashukuru ya kwamba tumekuja hapa kuangalia jambo hili kiundani na tupate suluhisho mara moja ambayo itasaidia na kuinua jinsi ambavyo tunafikia sehemu hiyo. Arrin lagu qaada dhigay arrimaha ku saabsan hay'adda Save the Children oo garab naga siinaysa ayagoo kaashanaya hay'adda countyga health department qaybta caafimaadka ayagoo kaashanayeen sidii ay ku gaari lahaayeen meelaha ilmaha talaalka ama nafaqa darrada ay saameysay oo waqti badan la gaari way sidii lagu gaari lahaay oo lagu gaari lahaay hooyooyinka uurka leh ilmaha nafaqa darrada ay taabatay ilmaha la talaalin taasna insha Allah fadhigeeda koowaad waa noo bilowday wada heshiisna waan ka gaari doonaa waana ka gaarnay sidii lagu gaari lahaay ilmahaas talaalka lagu siin lahaay iyo hooyooyinkaas aad u malnawr isku إن شاء الله انتصر سكيمان ملفعنا نرجع إن شاء الله.